السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalay qaali waa idin salaamay waa walaashiino Isra Decor iyo maanta video maalinkan shaqada aaday sida afurkayga u diyaarsado waa Ramadan day routine insha Allah hadda waa soo kacay mataqaana ma sha Allah mar hore ka soo kacay ilmahan day care geystay waa soo kacay aniga xiisada qaar ka qayb qaatay xiisadan waa lahaa marka dhaqsi ayaan xoogaa maanta ay xiisadan ay dhamaanayeen kadibna waxaan diyaarsanayaa afurkii maadaama hadhow anigoo daalan oo baahan oo imaanayno yacni xilligaasna lagama gaaro inaan afur iyo waxaas ka kariyo marka afurkeena waa diyaarsaneena waan bixi doonaa hadda waxaa ku bilaabayaa shurbad ama maraq oo maxaa maraq cuntada lagu cuno Soomaaliga ma maraq kaligii la cuno shurbad ah waaye waxaa ku darsanaa xawaaji kaariyar iyo wax yar oo filfish ilan maanta isku qasan meesha waxaa kale iyaana malaay asina waa diyaarin doonaa waxaa ku iraada afurkina diyaarinaysa fahmi karto waana afur healthy ah oo saliid iyo burki waxyaabahaas ay ku badneen videogan ku arki doonteen insha Allah walaalay videogan waxaan ugu talagalay hooyooyinka mashquulsan ama shaqeeyo ama wax kala qabsado si ay uga faa'iideystaan waayo dad badan oo maleeyaan inay masti tahay markaas afurka soo dhaweena jikada galowno ma ahan even hadaa guriga joogtid oo subax sadaan oo kale waqti u haysatid inta ilmaha ka jiraan daycare-ka afurka saan oo kale waa u diyaarsan kartaa kadibna waxaad samaysan kartaa hadhow markay caruurtaada ku imaadaan ilmihii seexso ama timo u hagaajiso ama guriga iska kala hagaaji ada ilmihi waqti la qaadan kartaa waqti badan oo ku save garooba cuntadaadana waa fresh because same day ah karisay ma fahanti inkastoo aan sambuuski ma taqaana aan farinjeerku ugu jiro oo videogiisa aan la soo wadaagi doono sida uu habeey sambuuski farinjeerku ku jiraa waxaana sameeyay ramadaanka ma taqaana maalin ka hor gabar abaay waan isku sii xujeysanay oo munaasahom ah iyada way soo sameysay aniga keyga ayaa dhima qaybteeda waan soo galin doonaa marka walaalay sa arkaysin sooba yar ayaan karinayaa hadeer uu ku bilaabo because afurkeena sooba ayaa lagu bilaabaa mar walba anaga ama healthy aan cunno ama wax mataqaana cunto aan healthy aan cunno macna malahan mar walba sooba ayaan karsanaa marka soobaha waxaan ku darsanaa wax yariis oo been maradiyaha sa arkaysin wax yar oo magac yacni waaye waxay ugu jirta linanaan iyo filfish linanaantas marka dhanaan ay leedahay almost cusbo dhanba uma baahno kadibna caagadan aan isticmaalo oo biyo ah ku shubaa maraqa meeshiisa u dhaafaya markaas kadibna waxaan soo diyaarinayaa malaay sa arkaysin basal baar oo jab iyo jab toona isticmaala marab ina carafta ka badiyo basasha oo caadigan ina isticmaalo marabiyo soo basal baarta caraf yar oo degan ay leedahay qofka ila arkay basasha kala xoog ayay leedahay marka ma isticmaali dooni waxaan isticmaalayaa kan iyo xabad toon malaayga ayaan diyaarinaya wixii aan hadda ku dari lahay kadibna malaayga ayaan soo jarjari doonaa walaalahay qaaliga marka hooyo mashquulsan hadii aad tahay please yani waxaaga waqti fiican iska karso waayo aniga ma idin dhahay aniga ma sameyn jiray aniga waxa ahay ilmahan iskuulka geysana daycare-ka aniga waa iska nasan jiray meelaha iska fadhin jiray waqti la iiga dhumaayo waxna ma kuugu siyaadayo laakiin markii oo hadda ilmaha ka maqan yihiin sidaan oo kale shaqada iskaga kariyaysid adiga waa soo shaqaysan kartaa hadii aad rabtid oo markaas shaqo xilligaas oo kale aad haysatid waxaad samaysan kartaa wax kale ayaad iska qabsan kartaa waad duceysan kartaa waad cibaadeysan kartaa yacni 24 hours kaaga markay wax ku kala leedahay very nice waaye aan waliba hadda aad waxaa uga helay app ayaa jiro oo gabar abaay ila wadaagtay munaasahom appka halkan ayaa idin soo dhigi doona appkaas wuxuu ku soo dirayaa notification wuxuu ku leeyahay xilliga adiga aad dooranayo kadib uu soo xasuusinayaa maanta suuradaas ma akhrisatay mataqaana suuradii aad rabtid iyo waqtiga aad rabtid ayaa dooranay kadibna wuxuu ku soo xasuusinaa saacad daqiiqad hadii ay noqoto saacadaha aad dukanayso kale ayaad ku xiran kartaa marka aad dukato ku soo dhacaa inta weysada ku dooranta ayaad hor u sii samaysan kartaa marka appkaasna bisha ramadaanka ma sha Allah aad u caawin waayo mashquulka iska badan shaqadii iska badan iska badan cashiradii ilmihii way joogaan alxamdulillah marka 24 saac waa waxa loo baahan yahay in adduunka bis aan ku bixinin oo bishan barakeysan iyo mar walba laakiin special bishan barakeysan in aad haysatid saac ilaahay kulul in la cuno ma fahanteen soo mikro waa la haystaa daba la haystaa wax walba yani possible ah inaad samaysatid so I don't think cuntada waqtiga karisid inay dib ku keenayso marka inay shaqo ka yareysa maahan saan sheegana galbihii walaa ilmaha waqti iska la qaad waxa iska sameeysa ma sha Allah ku tahay hadii aad cibaadeysanaysid hadii aad caruurta iska siixinayso waayo anaga Sweden waxaa la afuraa habeenkii 2 saac wuuna sii soconaya ilaa 3 saac u gaaraa ama 9 fiidnimo marka way dhib badan tahay ilmaha ku soo jeedaan ilma daycare-aada aroortii marka walaalay malaay kariska hadda bilaabanay meesha kabsar caleen ayaa ii taalo waa kabsar caleenta oo geeska ii saaran oo aan video ku tusay videogi oo habeen horeeto
waa kabsar caleenta badanaa waa iska soo saartaa inta waxay iga caawisaa inaan meel ka raadinin balaas inay idina fresh ii ahaato. marka ujeedin kabsar caleenteeda aan kasoo guranaya xoogaygii uga baahnaa maasha Allah guriga beer camal uga adeega waaye. dhirta waxay ku fiican tahay qofkii guriga joogo oo aad u keer gareynayo. guriga waa jooga anigaba laakiin intaa shaqaynayo intaan iskuulka ku maqanahay caruurta iskuulkooda geynayo waqtiga iska dhamaada walaalahay qaali ah. marka mar walba waxaan isku dayaa inaa yacni qof waxaas oo dhan isku mataqaana keeni karo inaan noqdo. marka anigu mas'uuliyadaas kale oo ilmihii iyo wixii iyo mataqaana xiriirka alla korka iga saaran yahay iyo iskuulkii asagaba shaqo socota ee shaqo aan dhamaanin ma jeclaysanin inaan mataqaana mas'uuliyad kale oo dhir badan aan guriga keensado. marka laakiin waa isku dayaa in asbaro ayaan rabaa si biyaha ani aan u cabo inaan dhirtan u siiyo. waa dhirtan dib biyaha laga badin waxa ku arkay way qalashaa way yacni ma korayso way xamaanaya dib biyaha laga badiyo hadii oo biyaha oo ku yareysid saas oo kale way qalale. marka waxa fiican waqti in aad u go'aansatid kabsar caleenta la jihaadaya no meesh dhana jabir way jabi weysay laakiin hadda afka hore ka jarjarnaysa arkaysi walaalahay qaaliga marka kabsar caleenta waxa soo saarnaya weelka saxkan ayaa u soo diyaarsaday waa dhaqi rabaa inkastoo markii aan keenay qudaar aan dhaqin baan aan meel gashan xataa frinjeerkii ma geliyo qudaar aan dhaqin haday baran noqoto haday kaarooto noqoto haday fruit caadi noqoto liin dhanaanta iyo liin macaanta waxaas oo dhan aanoo dhaqin oo shaambo ku dhaqin oo biiraacanin oo qalb ku dhaqaadano biiraacanin meesha frinjeerkii ma istaajiyo. markaad waxaa meeshan ka soo gurnaaya liin yar oo aan ku macaanaysan cuntada oo malaayga markii liin lagu daro aad u macaan yahay qofka cuna ayaa yaqaano aad iyo aad u macaan yahay. marka maadaama aan isticmaalayo liin dhanaanta iyo filfish isku qasan inta liin dhanaan aan ku macaanaysta ayaan ka jarana hal xabo marka ka jirto laba xabo yar yarne geedka ayuu kusoo dhex dhacday booska uu geedka ku dhex jiro waxaana kala soo baxaya asaga. marka fiyoreeyga hal bilo hadda oo marooya mar hore soo gaday bishii horeeto dhamaadkeeda bal waa arkaa bal inta ii gaaro waa arkaa fiyoraan aad uga hami weynahay inaa qatar iska dhigaa rabaa andho fiyoreesha waraabin karaa aad way isbatahay waa waxa qaadi kara marka qoorta lama suurto Soomaa walaalahay qaali. marka laba liin oo yariisaan soo jartay iyo hal xabo weyn iyo kabsaradeeni saa u jeediba kadibna waa soo dhaqdhaqi doonaa waa soo isticmaali doonaa bilaa idmo. walaalahay qaali waa kana saa u jeedin waxaan hadda isticmaalay linti waan soo diyaariyay wixii dhan sida hore ila socoteenba hadda birta ayaan waxaan ku soo shubanayaa subaga oo cuntada lagu kariyo ayaan ku karinayaa subaga bawaan isticmaalaa maadaama cuntada anaga ilmihi aan isla cuneyno inkastoo oo healthy aan rabno oo badanaa cuntadeena health iska tahay laakiin haddana at the same time subaga ayaa isticmaalaa waayo subaga iyo saliidda markii la isku barbar dhigo mararka qaar subaga ayaa fiican because subaga caanaa la socdo laakiin saliidda waa saliid oolya ama fat kaligiis waa fat kaligiis waaye soo markaa subaga ilmaha korin og oona fiican soo maadaama hadda aan ordaayay oo aan ka gaaray inaan laba digsi wax ku wada kariyo cunto oo aniga ilmahiiba noo wada qaadanayso yani aan wada cuni karno ayaan sameynaya maano malaaygan ilmaha aad ugu fiican yahay marka malaayaan karinaya saa hore usoo aragteen oo malaay markaa soo diyaarinayay subagan waa kana waa subaga wax dubista iyo wax kariskaba loogu talagala isticmaalay marka waa kaasa ila socdo kuley malaay si loo kariyo idin baraayo walaalahay laakiin malaaygan soo diyaarina waan arkaysiin
markuu saan igu soo bislaaday malaay karis badan marba saa ogtihiin markuu saa igu soo bislaaday aan arkay waxaan ku darsanayaa qudaar ayaan ku dari doonaa qudaar ayaan ku daraya kadibna waxaan sameynayaa qudaarta karis badan iyada marabto wax yar dabka markay isku dhex gasho oo yacni si fiican dhadhanka isku qabsado waan ka dejinayaa oo qudaarta ku daraya qudaar karis badan u baahan waa qudaarta oo qudaar karis badan u baahan ma ahan waa qudaarta oo fariiska ku jirta yariista digirta iyo broccoli wax yar oo ku badnayn ayaan karinaya maadaama broccoli badan aan u isticmaalay soobka ama suubka qof bas u yaqaano ma u baahni inaa mataqaanaa aan ku daro qudaar badan halkan aan broccoli badan kabsar caleenta ma jarjaraay mana soo waxeynay sideedii 2 xabo liin dhanaanta yariista ahayd oo kusoo darsaday xabad weyn liin dhanaanta waa kala jaray waa kusoo daraya liin dhanaanta malaayga waxay ka bixisaa urta oo malaayga ee qofkii aan jecleen ilmaha si urta malaay u dhibsan ayaa anigu soo sameeyay kabtoon hadda ayaan ku darsaday sa u jeedin toona aan soo xoqay marka intaas hadda aan ku daray kadibna markuu ii bislaado waa ka dhigi doonaa qaaliga waa kana malaayga la soo bisliyay la soo qurxiyay ma sha Allah yani oo nafta uroon yahay waa ma fahmino marka geeskaas ayaan soo dhigayaa malaayga anaga oo waaweyn aniga iyo xajiga waxa ku cuneynaa bulgur ama qamadi qof bas u yaqaano qamadi ayaan ku cuni doonaa ilmahan waxaan ku siisanayaa baasto iyo sooskan hadda aan karinayo sooskan wuxuu iga caawinaa in ilmaha cuntada igu qooyo waa ifaanteen maahano ilmuhu cuntada igu qooyna birtan dabka sii kululeystay saana u jarjartay subaga kadib jabjabaan ugu soo darsaday waxaan ku karsanayaa sooska marka sooskan wax fudud ma aan ilmahana aad u jecel yihiin qofka ilmihiisa daycare aadaan wadamadan aan joogno aad loogu kariyaa ilmaha oo iskuulka oo marka dhiganaysa aniga iskuul waa kasoo dhigtay wadankan marka iskuulka aad dhiganaysa yani oo iskuulka qadadiisa badana waxa u badan sooskan inaad ku cuntid cuntooyinka badan sidii oo mataqaanaa hilibkan yar kuuskuusan oo meatballska sidii mataqaanaa waxyaabahaas oo dhan sooskan ayaa badanaa lagu cunaa marka waana badanaa dadka meega iskuul kasta aa laga kariyaa soo ilmaha wax oo iskuul ku yaqaan guriga marka uu karisid cuntada aad u fiicnaan bariiska iyo hilibka ilmaha inuu badanaa ku soconnaa laga yaabaa marka meesha hadda waxaa igu jira basal subag yar iyo waxaa ku darsaday lemon pepper yar ku darsaday liinta ii bixaysa hal qolof kasoo jirta ku darsaday because aad ay u carfay liin xoog ayaa kasoo dhex carfayso liinta ayadan hal xaba kalena waa kasoo jartay intaa ku darsanaya intaa kala jaray waayo liin dhanaan caadi inaa ku miira ayay ahayd marka liin dhanaan caadi dhan kuma miiraayay lemon pepper caadi aan ku darsaday iyo liintan aan hadda soo kala jaray intaas ay ugu filan marka waxaa sugayaa inta oo saliidda brown iga soo noqonayo subag inta brown ka noqonayo ama kalarkiisa uu soo bedelayo ayaan sugayaa kadibna whip creamka ayaan ku dari doonaa walaalahay waxa u sugaa inta brown iga noqonayo waxaa waaye hadda subagii oo cad iyo basasho cad aan whip cream ku daro waa isla wada cadaanay nahma lahaan laakiin markuu saan dahabi u noqdo marka whip cream ku dartid wuxuu yeelanaa color aad u qurux badan whip cream kaliya ayaan ku darayaa ilin dhanaan bur ayaa ku dari kartaa marmarka qaar laakiin burka maadaama uu culus yahay ma ku darsanin balaas burka hadaa dhigaysid ma kugu taleen marka afarinjeer gashan sidoo kaleeto burka hadaa ku dirto ka adkaana laakiin marka saan oo kale u sameysatid anytime afarinjeer gashan anytime ka soo baxsan waxba ma iska bedelayaan marka ila soo socda abaayonka ilmooleyga sooskaas kasoo faa'iideysta idin dheelahay yani ilmahayga aad u jecel yahay adikana kuwiin I hope malaygaas iyo baastadoodii yar aan u kariyay aan sooskan ugu kordaraya cashadoodii waa kaas meelay ii saaran tahay yani waa u diyaariyay ama qado waxay u noqoto markay iskuulka ka imaadaan iskuul markay saas ugu soo imaadaan waxaa laga yaabaa inay cunto badan cuni karaan xataa waxaan siinayaa wax yar rooti iyo fruit ama soobka ii karsan ayaan wax ka siinayaa markay cabaar iska ciyaaraan ay joogaan 6 markay saacada gaarta galabtina waxaa la siinayaa cashadoodan caad aan u kariyay hadii la igu dhaho maanta daycare waxba ma cunin
cuntadooda way xumeed guriga saa u keeno waxaan ka buuxiyaa cunto haddii cuntadooda ay fiicneedna waan u dhaafaa mar kastana ma aamina daycareeka yani ilmaha cuntada waa iska siistaa daycareeka isagoo idhahayan waa cun cuntada haddana ilmihi wuu iska baaha karaa even isagoo cuno cunto oo shan sac subaxnimo ama 11 subaxnimo la cuno ilmaha marka guriga keenaysa afarti oo bar dhiman way ka baxday marka aan mar walba iska siistaa haddii lagu dhaho wuu cunay waa kaasa oo guriga kaa diido okay wuu cunay iska dhaaf haddii lagu dhaho waa cunay guriga keensa adigana iska siiso marka saa arkaysiin waxyaa noogama muuqdo baraanka yaraa kalar qurux badan ay u samaysay actually kalar markaa arkooy kalar aada u qurux badan waaye oo beej xigo beej caadina aan ahayn yellow aan ahayn cadaanna aan ahayn marka waa kaasaa intaas waan soo diyaariyay afurkii hadday noqoto malaygii iyo mataqaanaa maxaa ku irahdaay sooska ilmaha waan iska soo diyaariyey marka ila soo socda inta yaro ii dhiman ayaad ila sii habeynaysay labadan shay waa diyaar ayaga walaalahaysaa ujeediin waan soo diyaariyay mahana waa idin sheegay biyo baasta dabka saaranaya afurka intiisa kale inta ugu badnayd waan soo dhameeyay oo maraq qarinta iyo malaayga iyo soobihii inaan kariyo waan dhameeyay marka hadda waxa kale ii haray maxaa waaye in aan biyaha baastada aan saarto oo baastada karsado balaas aan bulgurkii ama qamadiigii aan ku cuni lahayn aan karsado aan ku cuni lahayn anaka waaweynkeena aan karsado soobkiisa ujeedin waa soo shiitay wax yaro filfil iyo waxaan ku darsaday liin dhanaan oo haddana carfis kale igu noqonaysa balaas dhanaanis asagana diyaar waaye meeshuu ii yaalaa soobkan anaga everyday baa cunaa because health waaye calooshin way kuu baxee adiga dhan waxaa ahaanaysaa fresh energy oo fiican waa ka heli maadaama protein ku jiro oo ku jirto digirta oo jaalaha ay ku jirto alaabta ayaa ayadan dhinac ka dhaqooya ujeediin meesha waa lagu raraftay alaab badan meesha soo isticmaal maahna wixii alaab isticmaalo cuntooyinka kusoo diyaarsaday kulli ayaan qasaalada iskaga soo guraa wixii iga soo haran gacantaan ku dhaqaaya badana wax ma iga soo haraan balaa maalin wax soo haraan gacanta hore ugu sii dhaqdaa waa kana qasaalada alaabta iskaga soo guray meesha iska soo nadiifiyay baastadii way ii karkaraysaa waa kana waa soo diyaarsaday biyaheedii bulgurkin wuu ii diyaarsan yahay marka baastada karsanaya koodi kadibna bulgurka ayaan karsan doonaa marka waana kana waxyaabahan kalena geeskeena oo yaalaan only thing aan sugayna baastada waaye marka sooskeena wajida qurux ku soo bax maasha Allah marka ilmaha baastada lagu siinaa macaan wax yaro kareem waaye oona sheegay ilmihiin cuntada u qoynaa weyn ku korayaan caruurta waxayna ka helaan calcium-kan aad u fiican maadaama caano uu yahay whip cream-ka caano ku jiro marka ilmaha aad ugu fiican yahay soo cuntada waa soo wada daboolaa cuntadana weelal kale ma ku shubaay maadaama hadhow arab ina kululeey marab ina micro ku kululeeyo ama kan cuntada lagu kululeeyo soo hadhow waxaa si caadi ah dib kale ina ku soo kululeysto ana shaqadayda ka soo qabsado oo mataqaana sidaas uga daneysto marka digsiyaasha dhawaan daboolo u jeedin baastadii baaqulgan yariiska ayaan ilmaha ugu soo shubtay waan soo miiray meeshaan ku soo shubay wax saliid ah kuma darib because pasta macaroni waaweyn waa isku dhageyso maxaa ku dhahayay bulgurka ayaa ii karkaraayo bulgurka ayaan karinayaa kadibna shaqada ayaan isku sii diyaarin doonaa walaalahay qaaliga meeshaas ayuu afurkeyga igu soo karsamay haddii aad tahay hooyo shaqayso ama hooyo rabto inay waqti badan galabtii seef garaysato saan oo kale ayaa shaqada iskaga soo boobsiisan kartaa markaad wixii dhan intaa soo ka karsaday oo bulgurkeyga afurkeyga waxba ka dhimaneen aan hadda shaqada aadayaa waxaa laga rabaa 12 in aan galo laakiin waa 12 hal saac ayaan haystaa waa inaan labisto oo isdiyaariyo oo aan baxo jikadana saanay nadiif igu tahay wixii dhan wada diyaarsan yihiin hadhow qofka kale xataa oo jikada imaado isma dhibsanaya waxa ma raadinaya weelash meesha ku jiraan way yaqaana timirta waatana daboolka laga qaada subax saana u dabooshaa laakiin habeenkii intaan soo jeedno oo cuneyno way ii daboolan tahay walaalaha qaaliga marka waa kaasaa guri nadiif hawshiyo ku yar iyo adigiyo active waa kana shaqadeedu wax badan ma ii jirto waa 5 minutes go maxaa dhahay waa 11 iyo barsa ujeedin shaqada ayaana soo aaday wax badan shaqadeedu ma ii jirto marka waqtin waa ii safe garoobaysaa ujeedin anigana waa soo shaqaystay waa ramadaanka ma la dhihin hal iska jijiifo kaliya hadii aad shaqaysatay xataa
waa very nice walaalahay qaaliga ah yani qof shaqaysan karo hadii aad tahay oo xoog kugu jiro shaqadin aad haysatid of course soo shaqayso saan oo kala waxa inta u diyaarsatay bixi kartaa hadii aad xilli hore kasoo bixaysid oo dhaqsi afurka 3 saacadood bar camal ay ka dhimantaa aad soo dhameynayso shaqada galabka ayaa afur karsan kartaa laakiin ani ma ku tashtiba anoo shaqo kasoo baxayna shaqo kale guriga aan ka qabto inta aan shaqada aan aadin oo banaanka ayaan teedo guriga dhameystaa sida badan aan sameeyo way aad u daalan tahay marka shaqo xilkaas saarnay banaanka amaad dhig soo shaqeynayso guriga markii aan nasan la shaqo qabo dib waaye marka video ina ka heshanayaan idin rajeynaa walaalahay mac salaama